kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ayaa laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar Nuur ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameeyay 4 ruux oo horey loogu karantiilay garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laga helay mid ka mid ah cudurka coronavirus. muwaadinka Soomaaliyeed ee laga helay cudurka ayaa wasiiradu waxay sheegtay inuu ka yimid dalka dibadiisa. waxay sheegtay in baaritaan dheeraad ah ay ku sameynayaan dadkii horey loo karantiilay haddana ay xaaladooda caafimaad wanaagsan tahay. wasiirada waxay ku talisay in dadka isdejiyaan isla markaana lagu dadaalo nadaafadda iyo yareynta shirarka lagu qabto magaalada Muqdisho ee guud ahaan dalka Soomaaliya. waxaa horey sidan oo kale kiisas la xiriira cudurka laga helay 19 dal oo Afrikaan ah, waxaana Soomaaliya ay ku noqonaysaa dalkii 20aad ee la xaqiijiyo in laga helay cudurka coronavirus. dhanka kale, gudiyada arrimaha bulshada, gaadiidka iyo maaliyadda golaha shacabka kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga dhawaaqeen in gebi ahaanba la joojiyo qaadka Soomaaliya la keeno isla mar ahaantaana laga keeno dalalka Kenya iyo Ethiopia maadaama dalalkaasi laga helay cudurka coronavirus oo dunida farabaan ku haya. dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amray in muddo 15 maalmood la hakiyo duulimaadyada caalamiga ah ee soo gala gudaha Soomaaliya. haddaba si aan wax badan uga ogaano cudurka coronavirus muxuu yahay? cudurkan waa hargabka oo kale, waxay ku kala duwan yihiin fayraska keena, laakiin waxay ka siman yihiin astaamaha sida qandhada, qunfaca, cunno xanuun iyo madax xanuun. dadka qaarna waa uu ku xumaadaa cudurkan oo wuxuu isu bedelaa burkiito amaba oo fureen. dadka qaarna way ka caafimaadaan sida hargabka oo kale looga caafimaado. waxaa cudurka coronavirus lagu kala qaadaa taabashada, neefsashada. haddii qof qaba uu kuga qunfaco amaba uu kugu hindhiso waliba in 2 mitir ka yar ku jirta, waad neefsan kartaa jeermiska. sidoo kale meel fayrasku gaaray haddii aad taabatid kadibna adiga ayaa isqaadsiin kara haddii aad wejiga ama sanka ku taabatid gacanta jeermiska xambaarsanayd. sax ma ahan in fayraskan uusan ku dhicin dadka qaar ama dadka aan muslimka ahayn ama uu ku dhaco kaliya dadka masaska ama fiidmeerta cuna, laakiin waxaa la aaminsan yahay inuu asal ahaan xayawaanadaasi ku dhici jiray kadibna dadka u soo gudbay sidaasna ku faafay. cudurka coronavirus ilaa iyo haatan looma hayo dawo iyo talaal, laakiin ka hortag ayuu leeyahay. waxaana ka mid ah in gacmaha si joogto ah loo dhaqo, in aan toos loo taaban qofka xanuunsan, in aan la cunin hilib aan la karkarin, inaad xirato maaskaro haddii aad xanuunsan tahay, in nadaafadda guud aad ku dadaashid, inaad ku qunfacdid amaba ku hindhistid warqad safaleeti amaba tiish kadibna qashinka ku tuurtid. ka ilaali farahaaga inaad ku taabato wejigaaga siiba afka, sanka, indhaha. ka fogow amaba ha tegin meelaha ay dadka badan isugu yimaadaan. qof walba oo aad la macaamilayso u jirso masaafo ka badan 1 mitir. qofnaha ku salaamin gacmahaaga. sidoo kale ka ilaalso gacmahaaga inaad ku taabato darbiyada iyo gidaarada suuqa iyo basaska dhexdooda ah. gurigaaga ha ka bixin intii macquul ah ilaa aad u baahato wax daruuri ah sida cunto ama dawo. dadka ka weyn 40 sano si gaar ah u taxadaraan maadaama dadka inta badan la dhibaatooda xanuunkan coronavirus ay ka weyn yihiin 40 sano. haddii aad qabto xanuuno kale sida sonkorta, cagaarshowga, burkiitada, neefta ama asmada, HIV iyo dhammaan xanuunada daba dheeraada, si gaar ah isku ilaali oo socodka badan ee dibadda iska yaree. sidoo kale, inaad alla ku xirnaato oo argagaxa iska yareysid ku dadaal. cudurka coronavirus ma yahay sida ay dad badan u bumbuuniyeen ama dadka looga cabsi geliyo? jawaabta dhaqaatiir badan ay ka bixiyeen ayaa maya. sababtuna waxa ay tahay boqolkii qof ee uu ku dhaco cudurka coronavirus waxaa celcelis ahaan u dhintay ugu badnaan 3 qof inta hadda la xaqiijiyay, taasoo macnaheedu yahay in dhimashadiisu ay aad uga yar tahay markii loo fiiriyo xanuuno kale oo dunida soo maray sida hargab doofaarka, hargabka shimbiraha, Ebola iyo kuwo kale oo badan sida HIV, TB-da, shuban biyoodka, malaariyada. dad badan waxay aaminsan yihiin in xanuunkan aan laga bogsan, waana fikrad qaldan oo kumanaan ayaa ka caafimaaday. dadka badanaa cudurkan u dhintay 60% waa dad da' ama xanuunsan ama difaacoodu yar yahay ama aan isla tacaalin. waxaa jira dad tiro badan oo waqti dambe la ogaaday inuu xanuunka hore u soo maray, sheegayna inaysan dareemin waxaan hargab ahayn. waxay cilmi baarayaashu aaminsan yihiin in xanuunkan si baahsan uu ugu faafay dunida, wadan walbana uu gaaray, laakiin ay dawladuhu qarinayaan
iyagoo u yeelaya arrimo la xiriira dhaqaalaha iyo argagax aan lagu abuurin bulshada. maadaama akhbaarta badankeeda ay dadka ka qaataan baraha bulshada, taasi waxay keentay in been laga faafiyo cudurka coronavirus, dadkana ku abuurtay baqdin iyo cabsi xoog leh. caabuqa coronavirus oo uu keeno jeermiska COVID-19 waxaa laga baaraa dareeraha jirka sida dhareerka, qoyaanka sanka, caliyada iyo dhiigga. waxay dhibaato ka taagan tahay helitaanka baaritaankan maadaama baahida loo qabo ay aad u badan tahay, soo saaristiisa oo yar iyo baaritaanka oo qaali ah. 7 wadan oo keliya ayaa waxay samaysteen qalabyo lagu baaro cudurka coronavirus. WHO waxay sheegtay in baaritaanada qaar aan la isku haleyn karin oo adigoo xanuunka qabo ay negative sheegi karaan. baaritaanka ugu macquulsan ilaa hadda uu yahay baaritaanka ay samaysay xarunta CDC ee Mareykanka. dad badan ayaa si qaldan u fahmay hadalhaynta ah 14 maalmood, iyagoo aaminay in hadduu xanuunka coronavirus ku dhaco inaad 14 maalmood kaliya noolaanaysid. taasi waa fikrad qaldan, sababtoo ah 14 maalmood ama 2 isbuuc waxaa loola jeedaa xilli huuriska fayraska corona incubation period, taasi oo macnaheedu ay tahay markuu jeermiska jirkaaga galo wuxuu u baahan yahay 1 maalin ilaa 14 maalmood gudahood inta aadan dareemin astaamaha xanuunka sida qandho, qunfac, cunno xanuun iyo madax xanuun. xanuunka coronavirus waad ka raysan kartaa, waxa uuna kuu soo mari karaa sida hargabka oo kale adigoon ku baraarugin. marka walwalka iska yaree, wixii shaki kaa galana hubso. coronavirus waa caabuq fayras oo ka faa'iideysta difaacyarada jirka bini'aadanka sida hargabka oo kale. fadlan ku dadaal waxyaabaha difaaca sare u qaada sida liinta noocyadeeda kala duwan, toonta, sanjabiilka, filfisha, basbaaska, huruudda, maraqa, malabka iyo weliba xabasowdada. bulshooyinka waxyaabahaasi aysan cunadoodu ka maqnayn halista corona way ku yaraan doontaa sida la saadaalinayo, jirkooda wuxuu iska difaaci doonaa. dalka Hindiya dadka ku dhaqan aad bay cunooyinkan u isticmaalaan, ilaa iyo haddana lagama soo sheegin qof caafimaad qaba oo u dhintay ama isbitaal loo dhigay cudurka coronavirus. waana wadanka labaad ee dunida ugu tirada badan. Shiinaha xiriir la leh dadkoodana aad u safraan. coronavirus waa jeermis ilma aragta ah oo ay dhib badan tahay in la iska ilaaliyo, siyaabo kala duwanna kugu soo gaari kara, weliba adigoo digtoon, sida taabashada lacagta, furidda iyo xiridda albaabada, taabashada alaabta xilliga dukaamaysiga, gawaarida lasla raaco, xarumaha waxbarashada iyo siyaabo kaloo badan oo aadan isaga ilaalin karin. sidoo kale bahda caafimaadku way adag tahay inay iska ilaaliyaan, sidaa awgeed waxaa muhiim ah in tallaabooyinkan la qaado. cabsida xad-dhaafka oo la iska yareeyo, isla mar ahaantaana alla la tala saarto. haddii aad xanuunsatid, adiga un ka ilaali qunfacaaga, taabashadaada iyo hindhisadaada dadka kula nool. haddii aad isku aragtid astaamaha xanuunka coronavirus, ku dadaal inaad ula tacaashid sida hargabka aad ula tacaali jirtay. haddii aad qunfac xaqale aad yeelatid, waa muhiim inaad antibiyootig qaadatid si aad uga hortagtid in caabuqa bakteeriyada secondary bacterial infection kugu dhaco, isagoo ka faa'iideysanaya difaacyarada jirkaaga. ka fogow isticmaalka dawooyinka difaaca yareeya ay Soomaalida badanaa u taqaano dawooyinka naqaska. ha rumaysan wararka TV-yada iyo warlalayaasha oo ay ka mid tahay inuusan xanuunkan weli soo gaarin meesha aad ku nooshahay, iyadoo laga yaabo inuu hargab ahaan mar hore kuu soo maray ama difaacaagu iska caabiyey. qasab maahan inaad xanuunsatid hadduu jeermiska ku soo gaaro. qasabna maahan inaad isbitaal u baahatid in lagu dhigo amaba oksijiin lagugu xiro. cabsida iyo walwalka badan waxay hoos u dhigtaa difaacyarada jirka, wuxuuna qofka u nuglaadaa xanuun walba. isdeji, wixii kuu qoran kuma dhaafayaan. corona kuma dili doono insha Allah, ayaysan cabsida ku dilin oo kaliya.